maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhulkeena hooyo Soomaaliyeed. markaas run ahaantii wadan waxa lagu qiimeeyaa baaxadda dhul oo ku fadhiyo iyo inta population oo leeyahay. run ahaantii dhulka Soomaaliya markii si loo fiiriyo waa dhul Ilaahay u maneystay nimcooyin badan, laakiin dadkiisa ay fahansaneen. Soomaaliya waa wadan intiisa badan sanadka u joogto qorax. taas micnaheedu waxay tahay waxa ku jooga qorax, waxa beera kartaa dhul, waxa haysataa jaanis aad ku samaysatid energy oo misas renewable energy waxa la dhaho sidaas ku samaysatid. taa waxa ku sii dheer adduunka hadda waa tagay damo energy haysatid, damo koronto fiican haysatid, damo wax soo saarkaaga badanayo. Soomaaliya marka waxyaalaha kale unique ay leedahay dadkeena aqoonin waxa kamid ah waa dhul Ilaahay maanta mirta mise halkii mir ku tuurtid biri ee geed ka soo baxayso. waan wada aragnaa guryahan deganna marka xabad nyaanya mirteed markii lagu tuuro wadada dhinaceeda waxa arkaysaa biri ayadoo soo dhalatay. taas waxa keenaya waxay tahay waa dhul fertile u baahneen bacrimin kale. ayadoo sidaas tahay ayaa dhul baraf ka daa oo 3 bil bis wax beerta cuntadiis lagu keenaa. halkee ka fikirayna, halkee ku maqannaa? marka laga soo tago dhinaca kale markii la fiiriyo livestock fiiri, Ilaahay wuxuu na siiyay xoolaha geelka ugu badan dunidan jooga waa 7.5 milyan way. maalin kasta waxa u dhoofinaa carabta. imagine marka meeqa dhalinyaro shaqo laga sii karaa. maanta ayadoo nool dhoofinayo waxa la sameyn karaa warshada, la sameyn karaa waxa la sameyn karaa in ayada hilib gooni loo dhoofin karaa. taas waxa kaaga sii daran Ilaahay geel kaliya ma ahan, waxa jirta intaas xoolo kala kala duwan. marka dhulkan Ilaahay aragtaan waa dhul Soomaaliyeed oo flat waa dhul siman oo fudud in laga dhiso every development adduunkan. carabtan arkaysa oo horumartay dabqadan dhaadheer sanad rafaad badan bay ka maraan. waa dhul saxar waa dhul ciidiisa aad u jilcanta. ahantii Soomaaliya Ilaahay intaas ma siin. taa waxa ku dheer waxay leedahay uranium, waxay leedahay minerals. uranium kan aragtaan waa wax adduunka hadda ugu dagaalamaya, waa waxyaalaha laga sameeyo nuclear power. markabkan adiga badaada lagu ilaalinayo waa wuxuu ku shaqeeyaa, laakiin adiga laga soo qaada. marka waxa u baahanaa inaan fahanno waxay tahay inaan aqligeena ka shaqaysiino. miyaa noqonay dadkii la dhihi jiray maskax bay leeyihiin laakiin kuma fikiraan, indho bay leeyihiin laakiin waxa xaq kuma aragna. ma rabno wixii shalay dhacay inaan maanta anagana mise nafsadeeda anigan kula hadlayo iyo quribays. marka adigan maanta sidee ku qaadan karnaa such a things inay maanta horteena ku dhamaadaan? war shalay saas nagu dhacday, maantana sidaa ma nagu dhacayso. waa mahadsantihiin.